asxaabta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kastoo dunida ka joogtaan bal ku surwaada habeenka iyo ciyaaraha waxaanu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda Cristiano Ronaldo oo tababarkii kooxda Man United ka baxay laakiin Man United waxay habeenka ku xaqiijinaysaa in Ronaldo ay ka maarmaan wali waxaanu soo qaadan arrimaha ku saabsan kooxda Chelsea ciyaartay Man City la ciyaarayso ciyaartoy ay soo ceshteen iyo wali waxaan eegi doonaa isagoo todobaadka weerar ku qaaday kooxda Arsenal si lamida waxaan eegi doonaa ninkii gaabnaaye Messi oo todobaadku la arkay markii kooxdiisa la garaacay isagoo guriga aan ooye albaabkii xira ku dhahaya waxaan kaloo eegi doonaa abaalmarinadii oo dhammaan City baa aruusatay iyo akhbaaraad kale saaxiibayaal sawirka noo saar ku jiran ku jiray sheerta ila ku dirkan saabta ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaar soo gudbinta barnaamijkeena waxaa ka qayb qaadanaya Askunicom macmiil haddii aad tahay arday danaynayan wax ku barto waddanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo shirkadda Askunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho, Hargeysa, Garowe, Gaalkacyo, Beledweyne, Jowhar, Baydhabo iyo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askunicom ka dhigo Askunicom wehelkaaga Turkiga habeen wanaagsan baan dileeyahay saaxiibayaal berina waa maalin maqaaro waa maalin kamal daari maalinta sabtida Yurub ciyaarihii dhan baa la ciyaaraya baryahan lama horyaaleyn beri waa la horyaaleynayaa horyaaladii baa soo laabanaya gaar ahaan Premier League oo ayaantan u maqnaa xilli maalinta loo doortay tababaraha ugu fiican bisha iyo ciyaartoyga ugu fiican bishii la soo dhaafay ee December labada nin ee City Pep Guardiola iyo Raheem Dhacdhacow Sterling ya bishaas cid Raheem Sterling u dhawaan kartay maanu jirino wuxuu ahaa bil aan isagu cumadiisa la haysan karin Raheem waxa weeye marna waa hurda marna waa soo kacaya baryahan waa kacsana tababaraha bisha ugu fiican Pep Guardiola baa loo doortay ciyaaryahanka Raheem Sterling baa loo doortay December Man City waxay ahayd kooxda laga yaabay 7 ciyaarood ay adkaadeen bishaas horyaalka Premier League waa record oo waqti dheer ay ugu dambeysay Premier League mar baa Liverpool sidaan oo kale inay sida sameysay ogowna Pep Guardiola in abaalmarintan la sii waxay ugu dhigan tahay isagu wuxuu yahay hadda tababaraha saddexaad ee ugu abaalmarinta tan ugu guulaha badan weeyaan isagoo aad ogtahay kaliya Premier League inuu joogo wax u dhow 5 sano jooga ayuu hadda yahay ninka saddexaad ugu qaadida badan abaalmarinta tan tababaraha bisha ABL-ka haddaba ninka ugu badan taariikhda abaalmarintan Premier League macalinka bisha wax weeyaan Ferguson ninkaas magaalka waad wax laga qaban karayo war Manchester United soo dhibaataysan tahay ilaa hadda soo ugu tagay nin isagu lamida way heli laadahay ninka ka wuxuu ku guuleystay 27 jeer macalinka bisha ee Premier League taas wax ma laga qaban karin waa ninka 13 Premier League meel dhigta waa ninkaas wax ma laga qaban karayo marka waa ninka ugu badan abaalmarintan macalinka ugu fiican bisha Premier League waa ninka ugu badan weeyaan isaga 27 jeer buu haystaa Arsene Wenger 15 jeer buu haystaa Guardiola 11 jeer buu haystaa Moyes baa ku xigo 10 jeer haystaa marka Pep Guardiola isagu waqti yar jooga Premier League ayuu hadda yahay tababaraha saddexaad kolba ma malaynayo wax laga qaban karayo ya ugu yaraan inta bilahan ka dhimin Premier League tomin laba tomin saddex tomin afar tomin shan waa kolba waa gaari karaa Arsene Wenger wuu soo qaban karaa ama wuu yara dhaafi karayaa laakiin ilaa xilli ciyaareedka dambe wuu dhaafi karayaa Arsene Wenger laakiin 27 hormaan wax laga qaban karin ilaa ninka kan sanad soo socdaan ugu dambeeyay Premier League uu sii joogo haduu isbedelo ma aqaan laakiin wuxuu lahaa waan ka tagayaa Man City xaga soo socda marka taas weeyaan heshiiskiisa dhacaya marka Pep waana bishii labaad oo isku xiga oo loo dooranayo macalinka bisha ee Premier League marka Raheem iyo Pep labadii abaalmarin ee macalinkii ciyaartooyga iyaga qaatay mid kale Thomas Tuchel ayaa ka digaya todobaadkan ciyaaraha qaar Premier League in la joojiyo iyadoo hadda ciyaaraha qaar la joojiyay wuxuu leeyahay kuwan ciyaaraha qaar waa la joojinayaa annaguna markaan covid iyo dhaawac qabna xoog bana lagu ciyaarsiinayay wuxuu warkan soo baxaya markuu Arteta sheegay in ciyaartu tan ay la ciyaarayeen todobaadkan uu shak ku jiro sababtoo ah wuxuu leeyahay dhowr ciyaartoy baa naga maqan oo covid iyo ma buuxin karno koronka kooxda yani inta la rabo in garoonka loogu ciyaaro yani 12 ciyaaryahan xataa ma haysan wiir moogtahay marka taas waxay ka dhigan tahay in ciyaarta Arsenal Tottenham ay u soo socoto in la joojin doono marka ninka kan Thomas wuxuu leeyahay haye bari horena anaga waxaad nagu ciyaarsiinaysaan covid-19 naga qabnay dhaawacyo haddana dadka qaar waxaad bilowdeen ciyaaraha ka joojisaan tusaalaan Leicester iyo ciyaartoodu waxay u baaqatay Everton maalin weyd sabab ku aadan covid balas dhaawacyo balas ciyaartoogii Afrika aaday kooxda ka hatta Burnley baa la joojiyay ee sabtida Arsenal marka macalinkeedu wuxuu shal xalay xaqiijiyay marka ciyaarta Liverpool dhamaatay in todobaadkan ciyaartooda shak ku jirto tan ay la ciyaarayaan aw ninka la yiraahdo Tuchel wuxuu taagan yahay taas cadaalad daraan u arkaynaa in ciyaaraha qaarna la joojiyo kuwana hadda ay sii baasaneen hal la joojiyo ciyaarta ay leeyihiin annagana covid iyo dhaawacyo ficil naga reebay leeyihiin yani ficil waxa ka reebay bariyay dhaawacyada covid ka hayeen baa Chelsea la ciyaarsiinay marka waxa weeyaan mindi ku taag weeyaano Tuchel wuxuu leeyahay Arsenal bal laga yeelo waa kaase
midda kale ugu miisan ciyaaruhu waxaa kamid ah habeenka Thomas Tuchel ayaa sidoo kale xataa madax xanuun hadda weli ku sii dhacayayo iyadoo daaficiisa Christensen uu ka maqnaanayo ciyaarta sabtidu ay la ciyaarayeen adag Man City ciyaartaas ciyaar waaye waliba saacada 3 iyo barka galabnimo waa ka war waa lagu galabaysanayaa waraa jiri doona balwiishka hayeer maalinta bari marka ciyaarta hadda waxa ka maqnaanaya lagu leeyahay runtii Andres Christensen oo covid uu ku dhacay runtii laakiin Danish inkastoo ka maqnaanayo still Rudiger iyo Thiago Silva iyo jalabo iyo waxba isku soo shacburinaya ninka kaaye tarobo tactic waa moogtaa ninkaas Tuchel lugaha baastada leh nin caadi ma aha marka waka xilli uu tababaraha kooxda Tuchel Chelsea uu xaqiijay in Chelsea dib u soo ceshtay laacibkeeda Kennedy maadaama Balmeri arkiisa ilaa hadda Lyon ay soo ceshan laayihiin Balmeri iga iskale ama uu kaga maqan yahay laakiin heshiiska wuxuu yahay maxaa inuu halkaas joogo marka Chelsea dhawaatooyin dhaawac soo galay oo ninkii baa ka dhacmay Chilwell waxay rabeen hadda soo qaataan Lyon waa diidan tahay marka Kennedy bay hadda soo qaateen oo Tuchel wuxuu xaqiijay maanta shirka jiraad ku xaqiijay Kennedy inuu dib ka soo qaateen kooxda Flamengo oo amaah uu ku jiray inay dib u soo ceshteen marka wuxuu leeyahay waa xilligu ismuujin lahaa Kennedy argoormu ahay Chelsea waqti dheer la soo joogay fursad badan kama helin wana ninku lug bidixeed oo qatar badan waa leeyahay ana luga Kuwait ninkaas kuma arkin luga Kuwait ma laha ninka lugu loo wayaan lug iska galab jacbur iyo lug Messi iyo Robin marka lugluka ku waxaan dadka lugta bidixeed aan toos ku qabin weeyaan lug iska xogsada weeyaan bidix iska xogsada weeyaan cunuga lugtiis waa natural dabiiciya hada saastay cunugu fursado badan ma la siin ma arkay isagoo shaqo iman arkinba waligiiba ama baa lagu diri jiray had markuu tababaru sheegay Kennedy la soo celi laakiin wuxuu leeyahay ma dhihi karno Kennedy baa xalka kaliya westin wali meelaha ka galgalaysa laakiin Kennedy waa la soo celiyo marka dambeed bidix bay ku sii cariirinayaan hadii ay Balmer isku heli karaana way isku dayaano taana wata mid kale ugu miisan ciyaaro waxa kamid ah Manchester United waxa weeyaan habeenku war xun baa u soo yeeray ninkii Cristiano Ronaldo ahaa todobaadka kan maalinta bari uu seegaya baa leeyahay ciyaarta ay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta Aston Villa odagu tababarka Man United uu ka baxay oo runtii ciyaartii la soo dhaafay xataa FA Cup-ka odagu dhaawac uu ku seegay haddana waxa warku soo baxaya ay sheegayaan in Ronaldo shakil gelinayo ciyaarta ay u safrayaan Aston Villa sabtida sabab ku aadan ninkan in wali dhaawacii ka soo gaaray sinta wali la dhibaatoonayo Ralph markaa odagiisu ma heli karo kulanka labaad uu Steven Gerrard ka hor imaanay isla isbuucan kadib markii maalmood uu ka hor imaaday iyadoo Aston Villa aysan dab yar shireen haddana Coutinho Dinyes iyo balaaye iyo meesha buuxo wax shuqulo kale la soo warwareegeen wargeyska san wuxuu soo warinayaa Cristiano Ronaldo inuu ka baxay tababarka kooxda Man United oo yacni goor hore uu ka baxay tababarkii kooxda Man United maalintii Khamiista ay sameeyeen markii odagu ka tababari waayay wali ma taqaana xanuunkii ka hayay sinta inkastoo odagu lahaa waan isku dayaa waan ciyaaro laakiin tababarkii ugu dambeeyay uu ka baxay Ronaldo ka dhigan tahay in odagu xaalkiisa yacni loo yaabay inaanu todobaadkan ciyaari doonin ciyaarta Premier League ayaa la arkaya marka warbaahinta Ingiriiska waxay habeenka isku wada raacayaan Ronaldo in shaki ku jiro ciyaartan sabtido ay la ciyaarayaan Aston Villa marka maadaama odagu tababar ka baxayo tababarku sii ka wadi waayay marka ninkan waa bir iyo Saliid Macsarin isku darsanaya ninkan birqaad waaye laga yaabo inuu hadda yimaado laakiin still hadda warku wuxuu yahay odagu shak weyn baa la gelinayaa laakiin Man United la'aanta Ronaldo sidee tahay iyada ma fiican tahay statistics waxay cadeynayaan Man United waxay fiican tahay la'aanta Cristiano Ronaldo markaad fiiriso celceliska guulaha Man United ay gaarto win rate ko loo yaqaan Man United waxay fiican tahay la'aantii odaga inkastoo Cristiano Ronaldo xilli ciyaareedkan Man United u dhaliyay goolal gaaraya ilaa 14 gool laakiin runtii ka taas kama dhigin Man United in yacni ay ka badbaadiso 7 gool daro ku dhacday iyo sidoo kale inay cali waraabay tagaan oo kaalmaha toddobaad iyo meelaha wareegaan bal fiiri hadda xilli ciyaareedkan tartamada dhan Ronaldo markuu Man United u ciyaaray markaan u ciyaareen tani markuu Ronaldo ku soo laabtay kooxda Man United wuxuu u ciyaaray 21 jeer 10 ciyaar bay guuleysteen 4 jeer bareejo bay galeen 7 jeerna waa laga badiyay marka waliba celceliska markii isagu joogo goolashay dhaliyaan waa 1.6 hatta markii isagu u ciyaarayo goolasha laga dhaliyo kulankiiba waa 1.5 laakiin guulaha celceliska markuu isagu u ciyaarayo Man United waxay adkaan kartaa kaliya 48 boqolkiiba way adkaan kartaa marka loo barbardhigo markuu isagu ka maqan yahay Man United 6 ciyaar bay ciyaartay la'aantiis 3 ciyaar bay adkaatay 2 jeer bareejo bay gashay 1 jeer baa laga badiyay inkastoo isagu markuu uu joogo ay macnaha celceliska goolashu ay badan yihiin isagu hadda markuu la joogo 1.6 bay dhaliyaan laakiin isagu marka aan la joogin 1.5 bay dhaliyaan halkaas waa looga fiican yahay Man United marka uu ciyaarin balse markaad fiiriso xitaa marka isagu uu yacni u ciyaarayn Man United goolasha laga dhaliyo way yar yihiin marka isagu u ciyaarayo goolasha laga dhaliyo ayaa badan laakiin muhiimadda loo socdo waa tan waa win rate-ku Ronaldo markuu ka maqan yahay Man United waxay celceliska adkaataa 50 boqolkiiba halka markuu isagu la joogay adkaadaan 48 boqolkiiba marka waxay tan ku cadeynaysaa chartskan ku cadeynaya Man United waxay fiican tahay la'aanta Cristiano Ronaldo
oo waliba ay guuleystaa celcelis ka fiican markuu isagu la joogo marka inkastoo Ronaldo marka shaki la gelinay waxa lagu leeyahay runtii waxba ha barxina waxba ha cabsanina still waxay charts ku cadeynaya ma inay fiican tahay laanta odaga inkastoo Ronaldo uu yahay nin weyn mar kastaba oo loo baahan yahay laakiin taas waa tayo mid kale ugu miisan ciyaar waxa kamid ah war haddaanu markan kala iibsigu eegnana Maynard waxa la sheegayaa in position fiican ay ka taagan tahay oo ay hogaaminayaan tartanka Fabian Ruiz oo ciyaarto qadxiga ka ciyaara oo Napoli u ciyaara waliba waxay ka hogaaminayaan tartankan kooxaha Liverpool iyo Arsenal Red Devil baa ku hogaaminaysa uu leeyahay inkastoo United Declan Rice uu yahay bartilmaameedkooda koowaad laakiin hadday wayaan baa uu leeyahay Fabian Ruiz bay qaadanayaan ogow Maynard waxay hadda diyaarinaysaa nolol bila Pogba sababta Pogba waxa kaga soo socda free buu kooxda kaga baxayaayo marka waxay warku sheegayaan Declan Rice iyo ninka lagu magacaabo Fabian Ruiz waa labada nin ee u bartilmaameedsan markuu kooxda Red Devils number 1 waa ninka West Ham u ciyaaray Rice hadii la waayana waa ninka kan ee lagu magacaabay Ruiz oo la sheegayo warqaddan ka soo baxay ku sheegayaan in Man United ay tartankiisa hogaaminayso mid kale Dybala ninkii ahaa ayaa ku soo wajahan Premier League Man United iyo Tottenham ayaa la sheegaya inay durba ay mataqana ay ka kaceen fadhiga oo ay xaaladda ciyaartooyga qiimeynayaan maadaama ciyaartooygu go'aansadeen inuu Juventus heshiiska u cusboonaysiin oo uu runtii dhageysta dalabaad ka imaanaya kooxaha kale la joya inuu baxbu doonayayo marka taas waa taa mid kale jamaahirta kooxda Arsenal ayaa cod dheer ka codsaday tababaraha Arteta inuu dhameystiro heshiiska ciyaartooyga lagu magacaabo Dusan Vlahovic waxay leeyihiin waan u baahannahay ninkan war lacag walba ha ku baxdo jawaan lacag ba ha ku baxee ninkan oo keenay leeyin kadib markii jamaahirtu Arsenal ay arkeen ninkan oo gool super ah oo fantastic ka dhalanaya kooxda Napoli habeenkii xalay ahaa Coppa Italia markay jamaahirtu ninkan ay arkeen waxay leeyihiin waa ku bariyayna Arteta riyada noo rumay war waxay rabtaa kugu qaadato ninka u baahannahay waxay leeyihiin kii koob la'aanta naga saari lahaa waa kan bay leeyihiin marka Dusan waa nin qatar badan habeenkii xalay ahaa gool fantastic buu dhaliyo waana goolkiisa 19 xilli ciyaareedkan 23 ciyaar uu ciyaarayo marka waxay Arsenal taageerayaashooda codsanayaan in Vlahovic Arteta wax walba ay ku qaadato kooxda ku soo daro mid kale warku aadan Artur Melana wada xaajood baa la sheegay inuu hadda u socdo Arsenal Juventus ay ka hadlayaan arinka Artur Mela wali wada xaajoodkan ayaa sii socon doona saacadaha soo socda Arsenal marka ninka kan bay doonaysaa inay qaadato bisha tan waliba heshiis amaah bay ku doonayaan inkastoo Juventus ay raadsanayso bedelkiisa marka kadib ay ninkan u fasixi doonaan marka Arsenal labada heshiis buu daba ordayaan laakiin jamaahirtu cod dheer waxay ku baaqayaan ninkan Vlahovic in kooxda lagu soo daro mid kale ugu miisan ciyaar waxa kamid mid kale Arsenal ninka kale ay doonayso Yuri Tielemans saacadii la soo dhaafay ama maalmihii u dambeeyay Arsenal waxa la sheegay Tielemans xataa inuu Arteta xiisaynayo ya Arsenal suuq waa gashay Arsenal suuq waa ku jirta haye warkayaan idinka noqonaya hawshiini horeyaan warkayga idinka noqon moogtahay Arsenal wala yaqaan moogtahay hawshan iga soo bilaabo ah hebel aan rabnaa igo dhaay suuq xirma jiri warkayaan idinka noqon aan rabnaa oo wax mataraan oo wax la qaadinayaan idinka noqon warku ha noqdo aan rabnaa waan qaadanay aan rabnaa rasmi waa la wareegay aan rabnaa war waa la qaatay warka aad ku noqon warkii hore yahay Rodgers imika xataa tababaraha Leicester baan hadda ka sii fixiyay Arsenal wuxuu sheegay Tielemans inuu kooxda ka bixi doono markuu heshiiskiisa kooxda dhamaado 8 bilood baan ninkan heshiiskiisa ka harsan Tielemans saacadii la soo dhaafay Arsenal baa la xiriirinayay wali ninkan waa aqbali laayahay inuu heshiiska kooxda u cusboonaysiiyo waxaan rabaa ninkan Belgium inuu kooxda isaga baxo marka wuxuu Rodgers sheegay in ay mataqaana Leicester isku dayayso yaa uu qiray inay noolaan yani nolol bilaa isaga ay isku daynay noolaadaan marka wiilkan waa wiilkii Chelsea ka dhaliyo goolka xagga la soo dhaaf FA Cup-ka ee Leicester Cup-ka gacanta u geliyay marka Arsenal ay doonaysa xataa waxa lagu wargeliyay in ay heli karayaan Rodgers wuxuu yiri waa ka quusanay mid kale Arsenal waa kan isla xalay ya wariya yiri Arsenal dhig malaha balba aragtaa wuxuu sameeyo ninka White la yiraahdo markii Minamino goolka qasaariyay Arsenal ragayaan xaliya si uu qeylay wiilkii Minamino ayuu odagu ku qeyliyay rutii waydo arxali cid dhiiga ku ay ka war ya cidna isma dhayn Arsenal oo daqiiqada 24 meelahaas red card laga siiyay Xhaka ayaaba Liverpool celin karta isma dhayn laakiin waa la ogaaday Liverpool inay labada dhinac ajirta laanta wax qabsan karin Mohamed Salah Ibani waxaana ka yaabinaya Arsenal noqotay kooxdii ugu horeysay Liverpool xataa gool ka ilaashata xilli ciyaareedkan tartamadoo dhan Anfield marka lagu ciyaarayo iyagoo 10 ku ciyaaraya ay 72 daqiiqo goolkood ilaashteen Arsenal ka weyn gashtaa laakiin red card waxa uu qaatay ninka la yiraahdo Xhaka wuxuu ka dhigay Arsenal ay si tahay wali kooxda ugu red card ka badan qaadashada badan waqtiga Arteta walow iyagu xataa ay noqdeen kooxdii ugu horeysay Premier League ee 100 red card qaadatay حتى كتكتاسو انتو ارتيتا جوغا حتى waa kooxda red card ugu badan qaadatay tan iyo 2 waa laga hadlayaa tartamadoo dhan waa kooxaha Premier League ka ciyaara Arsenal waxay qaadatay 3 red card intuu Arteta la joogo 38 red card City 7 ay qaadatay Brighton 7 waa tan iyo ninkan markuu kooxda yimaado weeyaan 2019 marka waa ka arimaha kale ugu miisan ciyaar waxa kamid ah Chelsea waxa la sheegay in war fiican ay maqlayso ku aadan Suli inuu ka doorbidayo Barcelona maadaama ninka kan uu ka doonayo inuu heshiis ku cusboonaysiin Bayern Munich wuxuu rabaa inuu soo aado Premier League oo Chelsea ku biiro halkii uu aadi lahaa Barcelona
Barcelona marka Chelsea warkaas fiican bay maqlaysaayo bal waxay isku dayaan raadisashada ama inay helitaanka ciyaartoy u bedela Antonio Rudiger iyo Christensen oo kooxda ka baxaya marka wargeyska bil wuxuu leeyahay Premier League kooxda ka ciyaarta ayuu doorbidaya baa leeyahay yani horyaalka Premier League inuu aado ayuu doorbidaya bay leeyihiin Suli oo ma doonayo inuu aado Barca mid kale waa Karoninkii Messi ahaa waxa la arkay toddobaadka waqtigiisa ku qaadanaya daawashada Spanish football waqti badan buu halkaas ku soo qaatay ilaa yaraantiisii odagu macnaha yani ma ilaabi karayo halkaas 21 sano ayuu Barca ku soo ciyaarayo Antonila Ruska xaaskiisa ayaa odagu waxay soo dhigtay baraha bulshada sawirka iyadoo buugeedii akhrisanaysa iyo Messi oo daawanaya ciyaarto waxaana ciyaarta la sheegay tii u dhaxaysay kooxaha kubadda cagta Bilbao iyo Atletico Madrid oo Bilbao 2-1 ku garaacday Atletico oo ay hadda saaxiibkii Suarez ba kooxdiisa u daawanayay moogtahay Real Madrid bayna hadda la ciyaariyeen finalka Bilbao marka ciyaarta bay ahayd waan dareemi kartaa marba Messi uu gambar dhigtay ciyaartii Bilbao iyo kooxda Atletico Madrid wad ogtahay habeen ka horeeyay in uu gambartay Barcelona iyo Real Madrid laakiin habeen dhawid gambarka waa ka qasaarayo isla habeen ku xigay gambarka ka qasaaray habeenkan Bilbao wuxuu taageerayay saaxiibkiisa Suarez buu taageeray Atletico Madrid adoo gambarka waa ka qasaaray gambar uu dhigto islaha Suarez islaha Suarez gambarka lagu gudoomiyay adigu marada ka dhacday haddana habeenkii labaad uu taageero noqday wariya Messi gambarkaaga ma adko habeen dhaweedna gambarkii buu dhigtayo xilli xun buu ninkii muxuu ahaa Real u ciyaariyay goolka saddexaad dhaliyay haddana isla dabaaldegi odagu sameeyay odagu Messi madax ka galay marka odagu waxa la soo qabtay sawirka sidoo toddobaadkan ula socday arimaha Super Cup-ka Spain-ka waana koobka isagu Messi ku soo guuleystay 8 jeer waysi markuu joogay kooxda kubadda cagta ee Barca bariyaan Covid bula dhibaatoonaya ciyaar toddobaadkan xataa uu seegaya Tillion uu seegayo marka waa Kayliyo waxa weeyaan xaajidiisa marada kale isagoo ma taqaana gambar u dhiganaya saaxiibkiisa taageeradaas u hayo Suarez iyo habeen dhaweed uu daawanay odagu wali Spain ma ilaawsana mid kale waa kayo Messi wuxuu indhiisa ku arkayay laakiin Nico Williams oo da'yarto 9 sano jira oo xilli dambe gool u dhalinaya kooxda Bilbao finalkana u diray Real Madrid ay la ciyaarayaan wiilkan ayaa wuxuu la dhashay ka kale Williams ka kale kooxda Bilbao u ciyaara haddaba labada Williams ayaa marka ay goolku yani ciyaartu dhamaatay waxa la arkayay inay u tageen hooyadood oo halka taagneed oo ciyaarta ka daawanaysay yaa haysta kare ciidamada waa la wiilo baariya marka waa kaayo marka xilli Messi habeenka ugu beegantay 2018 markii uu jibiyay rikoorka Gerard Muller oo uu noqday Messi ninka kaliya ee taariikhda 5 horyal weyn qaarad Yurub u dhaliya goolasho ugu badan hal koox Luis Suarez balfiri saaxiibkiisa waa sababtu Messi uu gambar dhiganay todobaadkan uu taageeriyay Suarez ciyaartii Super Cup-ka Bilbao maxaa yeelay balfiri meeshan jaceelku saaxiibkiisa Messi u qabo balfiri Lionel Messi intuu faraxsan yahay rikoorka habeenkan goolkan ku jibiyay in ka badan waxa faraxsan Alberto Suarez Luis marka lagu tumisay dibadda sawirkan la qaaday habeenkan markuu Messi jibiyay rikoorkii Gerard Muller oo noqday ninka kaliya taariikhda hal koox u dhaliyay goolasho ugu badan 5 horyal weyn qaarad Yurub marka taasna waa taa beddelka lagu miisan ciyaaraha waxa kamid ah Real Madrid waxa la ogaaday oo Madrid Paris uu soo ogaaday taageerayaasha Real Madrid ee ku nool Saudi Arabia inay Mbappe aad u doonayeen in ka badan intay doonayeen haalaan madaxweynaha kooxda Florentino Perez arkaas maanta uu soo ogaadayo dadka inay Mbappe uu hayo oo aan halano u hayn tababarkii Madrid buu tagay jimcaha dhabarkuna ka rabaa xuriir wariya jibaalka fala hawsha dhameystira marka laakiin markuu halkaas tagay wuxuu ogaaday jamaahirta Madrid inay in badan rabaan cunuga yar Mbappe haalan mar rabaan in badan Mbappe u ahay dadka marka Perez uu og yahay wiilka inuu soo qaatana inuu marketing ku heli doono asaga wuxuu jecel yahay dadka kooxdu dhaqaale soo geliya waa hadda koorkii ka doortay Ronaldinho ka doortay waa David Beckham marka kooxdan dhaqaale badan ayaa u soo xaroonayo gaar ahaan Carabta oo uu wax badan kaga gurubsan doono marka wiilkan Faransiiska baa loogu baaqay waxay leeyihiin Carabta annaga Mbappe baan rabnaa marka odagu waa loo soo sheegay mid kale Barca waxa la sheegay in kastoo Dani Alves ay keensadeen still waxay doonayaan bal leeyahay difaac kale oo dambeed mid ka ciyaara waa la ogyahay Dani waa nin aad u khatar badan laakiin secret ma ahan bal leeyahay wax yani qarsoon ma ahan Barcelona dambeed mid kale ay suuq ka doonayso Xavi isha ku mar biyaa lagu leeyahay ninkan Sergio Desti waan ogyahay ninka kan kale inuu 36 sano jir yahay marka waxay aad u isha ugu hayaan bal leeyahay ciyaartoyga Jose Luis Gaya oo Valencia u ciyaara marka Mati Elmani ninkan uu garanaya waqtigiisii director kooxda Barcelona waqtigii ninkan Luis uu joogay ay isgaranayeen marka Barcelona ninka loo dambeeyay midna way doonaysaa xilli sidoo kale la sheegay Sergio Dest qudis inuu doonayo si joogista kooxda Barca bishan oo unan ka tagin laakiin waxa la Xavi ninkan maba rabiyaba oo ninka uu ka doontay ninkii Luis Nani laacibkii hore kooxda Man United waxa la sheegay in qarka uu saaray ku biirida kooxda Venezia waliba ninka kan ayaa goor raba ka dir u leeyahay Talyaaniga isagoo tijaabada cafad u maraya ama tijaabada cafad ku maraya Luganeri ninkan ayaa maalin heshiiskiisii Orlando City uu soo gabagaboobay
Bologna iyo Genoa baa la xiriirinayay ninka ka laakiin Nani ugu dambeyntii waxa la sheegay in heshiis la gaaray kooxda Venezia marka Nani hore buu mataqaana Talyaaniga mar ugu soo ciyaaray kooxda Lazio inkastoo waqtigiisii Talyaaniga uu yara wareersanayo 3 gool u dhaliyay 10 ciyaarood Simone Inzaghi kooxdiisu u ciyaarayay 2038 balse hadda wuxuu rabaa inuu mar dambe ishiru doonayo Nani ayaa 40 gool u dhaliyay 230 ciyaar u ciyaaray kooxda Man United qudheeda 2017 ilaa 2014 la soo joogay Champions League la qaaday iyo 4 Premier League xitaa hadda intuu Mareykanka jiray Nani 3 gool ayuu dhaliyay 7 ciyaar oo MLS uu joogayo marka waa kaayo Nani wuu Talyaaniyeynayaayo mid kale Diego Dalot waxa la sheegay in dalab uu kaga yimaaday Atletico Madrid Simeone baa rabaa ninkan uu ku bedesho booska ciyaartoyga Trippier uu ka baxay ciyaaraha sidoo kale waxa ayna kamid ah nimankii Sevilla ahaa waxay la wareegeen baa leeyahay gacanta ku dhigeen ciyaartoyga Corona Corona waa laga orday maxay tahay Corona la soo gadanayo maaya magaciisa waxa la yiraahdaa Jesus Corona ayaa la yiraahdaa Porta laga soo qaatayo Sevilla baa qaadatay wariyahay wariya ayaan tam Corona laba sheeg kare Corona maxaa kugu dhacaya ugu dambeyntii sawirkan baan idinkaga tagayaa wariyahay wixii hore waa dahab ma ogtahay ragna waa tagayo waa fariistay waa markay Maldini iyo Cannavaro laba difaac oo Italiyaan cajiiba ay ka hortagayaan weeriyahanka ugu qatarta badnaa maqaarka Ronaldo Nazario oo difaaciyada wareysanaya iyo nimankan oo Ilaahay amarkiisba loo dhalay wixii wax wareysanaya inay ka dababoodaan fanaman weydii iyo asaga ku sheegaya labadan Italiyaanka sidii u dhib badnaayeen iyana weydii labadan nin Ronaldo wuxuu ahaa iyaga ku sheegayo sawirkan waa mid kamid ah sawiradii ugu fiicnaa Eva Bruniga laga qaado maqaarkan dad waa soo maray ka war nabadgelyo